عفيسك عدالة كدنبي كرتا ودadku waa isla xisaabtami karaan magdhow ay isisiin karaan waxyaabo badan ay ma karaan laakiin cafiska waa furaha wada hadalka iyo heshiiska hadii aan is cafino faa'iidada ugu horeysa ee aan helayno waxay tahay caafimaad nafsi ah qabiil way dawar jaleeyada igada qabiil way tuleeyada igada qabiil qarmaaytee aniga curadkaygii oo Cabdirasaaq Ismaan Cabdullaahi la yiraa oo ciidanka booliska ka tirsanay oo saldhiga hodan oo beriga lambar 4 ku yeelay ka tirsanay waxa dilay hotelka ka soo horjeeda ee Naasaablood nin ka tirsanay ilaaladiis magaciisa hadda ma sheegayo laakiin hortiina ka ballan qaadaya inaan diyaar u ahay inaan cafiyo ummadda dhan ee Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in la iscafiyo waxa la yiraahdaa dadka guuleystayaasha ahi markay waayaan jawi ay guushooda iyo halabuurkooda ku soo bandhigtaan isla mugdiga laftirkiisa waxay ka samaystaan jawi ayagu ay u baahan yihiin dadba arrimahan cafiska u arkin ahmiyad laakiin aniga waxa aaminsanahay markii naloo soo bandhigay oo aragnay inay tahay wax runtii muhiim ah Cabdiweli saaxiibkiisna waa dad daraasad dheer sameeyay runtiina muddo ka shaqeynayay marka waxaan aaminsanahay culimada Soomaaliyeed iyo qof kasto Soomaali ah inay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii barnaamijkan ku noqon lahaa mid mara dhala mid sii socda mid aan uga soo harno Soomaali oo hal ah cafisku waa ka weeyaa hal maalin dhibka aan isu geysanay hal maalin waa ka badan yahay dadku waxay ku su'aalayaan yaa wax cafinaya yaa la cafinaya ma qabiil cafinaya ma sideen muxuu yahay anaga balaankeen ama qorshaheenu muxuu yahay qorshaheena la idin fasir maayo waa saddexdii documentary halkaas ka daawateen waxaan doonaynaa inaan ina wacyi gelino oo waxaad ku daasheen in maalin kasta la idin kaga sheekeeyo Soomaali faquuqaya Soomaali dilaya idin la kaga sheekeeyo ku daasheen waa in ka bedelaynaa waxaan ku shubaynaa Soomaali jecel wanaag jecel isu soo dhawaanaya mustaqbalkooda wada dhisanayaan in ku quraynaa idinkuna waxaan ka codsanaynaa inaad naga yeeshaan qabiil way dawar jaleeyada igada qabiil way tuleeyada igada qabiil qarmaaytee dhalinyaroy waa inaan dhahnaa jidkii hore halkan aan ku joojino nolol cusub aan bilowno sida dadka ficeena ay u nool yihiin aan u noolaano wixii dhacay waa taariikh aan wax ka baranno laakiin aan xumaanta uga daysanay howlo badanaa bilowda waaya ma ogeed qabiilaan isdili jirna hey ummaddu qabiil ay isu laysaa kuwii anunka aan isdirna isku baaba'an oo dad ya deeq weyna kuwii tawara haddii kuwii hadda inta oday soo dirsadeen cafisaan nala cafiyo waydan cafayna ay keeneen anigana inta fiirtay anigu dad iskama cafiyee islaantayda xalwa deeqa aheedoon wax iga cafin haddaan cafiyo anaa cafiska hoose gelaaye aan ka niraa allahu akbar عفس بابا هيقول سوق قادر أكون عفس بابا يلايو سبحان عفسك كوديده أنا وحفل ولا سعفياتات أياك والله إنه وقتها هاي أنا إسكعفل ابني أكودر saddex group aan rabnaa inay isku kaashadaan dawladuna de korka ka ilaaliso ku caawiso waa culimada u dhaga fududnahay waa abwaanada iyo fanaaniinta halka ku arkayseen iyo wariyaal cilmiyeysan ee dadka ku wacyigeliyo warkooda u gudbiya ummadda waa intaas horta cafiska la idin sheegaya meeqa ayaa aaminsan waxaan u baahannahay
inaan helno hal maalin oo aan u cilaansanno maalinta cafiska ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad gacanta taagtaan waa maasantiin madashan oo ay isugu yimaadeen bulsho aad u badan ahna bilowga ololaha cafiska Soomaaliya oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bishii 6 2018 haddii alla idmana sanadka dambe waxaan rajaynaynaa maanta oo kale inaan samayno isku soo bax iyo waliba shacaaro iyo bandhigyo ka fiican midka maanta aan isugu nimid ama ka sii qiimo badan si aan u muujinno hanka iyo himilooyinka rabitaan ee aan u hayno maalintan ugu weyn waxaan ku garab taaganahay shaqada aad wadaan tiimka cafis oo dhawaan ku garab taaganahay meel kasta gobol iyo degmo iyo tuulo meeshii loo baxayna waan idin la shaqaynayaa cafiskuna maaha wax maanta kaliya dhamaanaya ilaahay baa quraankiisa ku sheegay oo yidhi hal is cafiyo 3 shay aan caloosha waxba la isugu haynin